بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الصومالي سويل بمقالك إيديسو قاري وأنيقو يوكيا شانك أنا قد داونيسان وكيل جيبكو بشال يوم من نكسبون إن شاء الله مقالكيني maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa waa muuqaalkii ugu horeeyo aan ka sameyn doono sababihii burburkii Soomaaliya insha Allah waa episode 1 ama qaybtiisa ugu horeysay waaye laga yaabo waxayna gaari doontaa ilaa ay konton qayb si amar walba u sheego waxay gaari doontaa konton qayb iyo wixii ka badanba insha Allah muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa bilowga ama safxooyinka ugu horeyso sababihii ka dambeeyay iyo wixii ugu dhaliyeen aan ka hadlo burburka Soomaaliya arinta ugu horeysa meeshan ka sheegaya waxay tahay yaa qalad loo fahmin inaan ka hadlo burbur aan ka soo tagnay ileen waxay hadda aan dareensanahay waxay tahay insha Allah inaan horumar gaali doono sababta uga hadlaaya waxay tahay waxaan rabaa inaan noqdo qofkii ugu horeeyay ka hadla sababaha burburka bilow ilaa dhamaad ee documentary ka sameeyay haday naftu Ilaahay ii saamaxo insha Allah Ilaahay ii daysto intaasna aan noolaado waxaan rabaa inaan ka hadlo كو إلا إلا ما سببه بربك كليفي إن شاء الله هذا أنك عاجزين وحي عاجزين جلين كرن وإذنك وحي إدير جلين كرن وإذنك هذه مقال والبنصور دي لايك لسيو لا شير جريو لو مالك لسي جرسيو إن شاء الله وحن نقنايا قف وحو سمينا يكفر حسن marka insha Allah muuqaalka waxa igu kalifay waa sida yaa xumaan loo fahmin meesha siyaasad looga ma hadlaayo qabiil looga ma hadli doono insha Allah waan bilaabi doonaa maxaa sugaysiin waxa jiro taariikh fac weyn oo Soomaalida ay soo dhaxjibaxday waqtiyo fara badan oo laha astaamo kala duwan sida waqti ay ku noolayd barwaaqo iyo baraare iyo kuwa colaad iyo kuwa abaara lahaaba sida ummadaha kale ee dunida ay Soomaalidu leedahay diin dhaqan caadooyin iyo wixii la mid ah si kastaba ha ahaatee waxa waayahan dambe dalka ka dhaca waxaan horey loo soo marin waa colaado badan la soo adeegsaday hub culus oo sababay khasaare laxaad leh dhibaatooyinka dalka ka dhacay dad yar ayaa u kuurgalay inay wax ka xafidaan taariikhooyinka ama inay wax ka qoraan arinka ugu muhiimsan ee nuxur ahaan aas iyo gundhigba u ah murtida kala duwan ee sheekada sababihii burburka Soomaaliya ay ka kooban tahay ayaa ah soo bandhigista fikrada ah in burburka qaranka Soomaaliyeed san imaan kadib markii la riday maamulkii mudane madaxweyne Maxamed Siyaad Bare walow waqtigaasi ku beegnaa markii ugu dambeysay ee maamul dawladeed uu meesha ka baxo ay haddana jireen dhacdooyin taariikheed ee xiligaas ka hor soo taxnaa kuwaasi oo markasta jiritaan qaran iyo kalsoonida shacabka naafa ka sii dhigayay dhinaca kale waxa sheekooyinkan ay faafahinaysaa goortii la unkay qaranka burburay iyo gumaysigu dan kasta ha kala haadee isugu talay Soomaalidu oo dhaqan ahaan waayihii hore deegaanku iyo daaqsiinku uu u kala madax banaanaa kadibna loogu sameeyay maamul gobol qaadi kala xukuma iyo ciidan ilaala ah oo soo qabta qof kasto maamulka go'aanadiisa ka hor yimaada sheekada waxaan si cad ugu qeexayaa waxyeelada ba'an ee tafaraaruqu u geystay mujtamaca Soomaalida isagoo markaana qayb ahaan qabyaalada ku tilmaamay inay halkow ka tahay sababaha burburka Soomaaliya wuxuu xusay in xilligii ugu dhawaa Soomaalida ay u muuqatay mid ka badbaadaysa dhibaatooyinka qabyaalada ay ku beegnayd xilligii lagu jiray halganka go'nimo doonka haddana dhabahaas nadiifka ah laguma sii waarin haddana waxa ay sheekadu ay kashifaysaa inay ahayd ayaan daro iyo wax laga naxo kadib markii ay Soomaalidu xorriyadda qaadatay 1960kii ay hanaanka awood qaybsiga jagooyinka sarsare qaybsatay hab qabiil sheekada waxay si aad ugu dayrisay qaran markaas la hubaa qabiil walbana lagu qancan karin halkaasna waxa markiiba ka abuurmay khilaaf dhib badan oo si weyn loogu kala fogaaday sheekadu waxay tusmaysay awood qaybsigii ku dhisnaa habbeeleedka ee dawladii 1960kii waxay markiiba wiiqday midnimadii gobolada waqooyi iyo koonfur oo sida shuruud la'aanta iyo niyad samida ah udubkeeda loo taagay koodii luulyo 1960kii waxa habkaas niyad jab ku riday shacabkii reer waqooyi oo shucuurtooda ku muujiyay qaadacaad iyo diidmo ay kala hortageen codkii kalsoonida ee loo qaadayay waxa la yaab lahayd sidan sheekada ku xusaayo in xitaa kaba sii daran meel lagu kala qortay heshiiska noocaas ma aysan jirin waxa kaliya ka abuurmay caro iyo ciil gaamuray mar kaliya digniin la'aan sida badan aad sheekada ku arki doonto
waxay aas u yihiin sababaha burburka Soomaalida oo marba marka ka dambaysa isa soo tarayay. Markii la qiimeeyo macluumaadka iyo xogta sheekada ay xambaarsan tahay, waxay mudan tahay in loo aqoonsado horyaalka sheekooyinka. Haddaba muddadii aan ku howlanaa ka sheekaynta ama diyaarinta sababihii burburka Soomaaliya, si kastaba ha ahaatee burburkii nagu dhacay waxaan dhahaynaa ama aan ugu magac daraynaa musiibo magac la, sababtoo ah waa burbur ilaa hadda meel xun naga taabtay. Waa burbur Soomaali badan dhaxal siiyay dhimasho badan aan la koobi karin, dhaawac xanuun badan iyo barakac baahsan oo kalifay in dadkii xididka iyo xigaalada isu ahaa ay u kala qaxaan dacalada dunida oo dhan. Ayay bulshada caalamka marar badan isku dayday inay xasarada Soomaalidu ay ka dhex ogaan inay wax ka qabato. Shirar Soomaalidu lagu dhexdhexaadinayo, dibna loogu heshiisiinayo, wadamo lagu tirinayay in arrimaha Soomaalida ay u dhuun oo cid walba ugu xog ogaalsan yihiin sida Djibouti, Ethiopia, Masar iyo Kenya. Waxaa sidoo kale Soomaalida lagu garnaqay xarunta JQM ee New York. Waxaa sidoo kale la geeyay looguna duceeyay magaalada barakeysan Makka al-Mukarram. Dadaal kasta oo dib u heshiisiin ee Soomaalida loo maray waxba kama aysan soo naasacadaanin, wax guul ahna lagama gaarin, iyadoo sababta ugu muhiimsani ay tahay waxaan la raadin dhab ahaan meesha uu ka soo jeedo. Eelka khilaafka Soomaalidu waa meesha ay Soomaalidu ka tiraahdo marka war la helo ayaa tala la helaa. Baahidaas oo taagan iyadoo taas ay jirto xigmad taas ka qoto dheer oo ah in la helo qoraal dhaxalgal ah oo si cad u qeexaya arrimaha ay ka dhasheen colaadaha sokeeye, si jiilka soo korayo sheekadani ay ugu noqoto badbaado iyo samata bixin oo aysan ugu hooban haadaamaha halista ah ee Soomaalidu maanta nool ee qayrkeed ka reebay. Markaasoo insha Allah episode 1 meesha ku soo dhamaaday qaybta ugu horeysay muuqaalka qaybta ugu horeysay ee sheekada burburka Soomaaliya. Waxa ku xigi doono sheekada labaad aan u sii gudagali doono insha Allah. marka inta ka kulmeen muuqaalka xigo si ay ugu video bumbu kalaatay awliya la kala manaa bahada.